إخواني أحبابي الصغار، أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kulanti wacan kusoo dhawaada barnaamijkeeni qisas min السنة للأطفال. qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay qisatu abi hurayra maca الشيطان. هيا هيا نجلس مع كل الإخوان، نتسلى ونتعلم وتذوب الأحزان، نسمع قصة مفيدة على مر الأزمان، نتعلم وننشد مع كل الأطيار. أبو هريرة رضي الله عنه ayaa mar nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u xil saaray amwaal zakaa oo nabiga loo keenay inuu ka warqabo uu ilaaliyo. Abu Hurayra isagoo howshiisii wata xilli habeenana ay tahay wuxuu arkay nin dhuumaalaysanaya oo meeshii amwaashii zakadii cuntadii meeshii tiilay guranaya ayuu arkay. Gacanta ayuu ku dhigay, ninkii wuu qabtay wuxuuna ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan kuu geynaya, sidee ku dhacday in aad hantidii muslimiinta iyo amwaashii zakadii aad dhacdo ood gurato saan samayso? ninkii u dan sheegtay, duruuf adag ayuu sheegtay. wuxuu yidhi niyahow, nin ilmo badan leh baan ahay, duruuf adag haysato, dan ayaa ii geysatay in aan imaado meeshan oo aan amwaashii zakada wax ka qaato. Abu Hurayra wuu u naxariistay, ninkii wuu iska sii daayay. subaxii markii la gaaray isagoona waxba u sheegin nabiga calayhi salaatu wasalaam, nabiga ayaa wuxuu ku yidhi Abu Hurayra ka waran ninkii aad xalay qabatay. Abu Hurayra wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow, ninkii wuu ii dan sheegtay, duruuf adag iyo ilmo ayuu sheegtay, anigana waan iska sii daayay. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, been buu kuu sheegay, wuuna soo noqon doonaa. Abu Hurayra wuu yaqiinsaday, marba hadduu nabiga yidhi ninka soo noqon doono, inuu soo noqon doono wuu yaqiinsaday. habeenkii labaad ayuu sugay, isagoo sugaya ninkii waaba kanba wuu soo galay, wuxuuna bilaabay in uu cuntadii zakada wax ka qaato oo gurto ayuu bilaabay. haddana Abu Hurayra wuu qabtay, wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan kuu geynayaa, mar labaad baad soo noqotay ood qaadanaysid amwaashii zakada iyo hantidii muslimiinta. ninkii haddana wuu dan sheegtay, wuxuu yidhi nin duruuf adag haystaan ahay, dan baa ii geysay inaan imaado, ilmo badan baan leeyahay, duruuf adag ayuu sheegtay. wuxuuna ballan ku qaaday inuusan mar dambe soo noqonaynin. Abu Hurayra haddana wuu iska sii daayay. subaxii nabiga calayhi salaatu wasalaam bay is arkeen. nabigu wuxuu ku yidhi Abu Hurayra ka waran ninkii aad xalay qabatay? wuxuu yidhi ninka dan buu ii sheegtay, iyo duruuf adag iyo ilmo badan ayuu ii sheegtay, anigana waa isaga naxariistayo waa iska sii daayay. nabiga wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, been buu kuu sheegay, wuuna soo noqon doonaa. habeenkii saddexaad buu haddana sugay Abu Hurayra. waa ka ninkii wuu soo galay, sidii labadii habeen hore wuxuu bilaabay inuu cuntadii gurto uu maaragtay zakadii wax ka xado. Abu Hurayra haddana gacanta ku dhigay, wuxuu yidhi 3 jeer baad soo noqonaysaa oo hantidii zakada aad guranaysaa, aad xadaysaa, oo haddana aad leedahay ma soo noqonayo, waadna soo noqonaysaa, ma ku sii deynayo markaan. ninkii wuxuu yidhi iska kaydaa, waxaan ku barayaa kalimaad ilaahay kugu anfaco ayaan ku barayaa ayuu yidhi. saxaabadan waxay ahayd dad aad khayrka u jecel, wax fiican oo wanaaga oo ilaahay kugu anfacaya lagu sheegay haddii la yidhaahdo waxay jeclaan inay dhegaystaan. marka xataa ninkaanu nin tuuga oo dhan kharibana, laakiin bal horta wuxuu sheegayo dhegayso. wuxuu yidhi haye waa maxay? wuxuu yidhi habeenkii markaad seexanayso waxaad akhrisataa aayatul kursi, akhriso allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum, akhriso ilaa aad aayadda dhammayso. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. habeenkaas oo dhan ilaahay baa ku xifdinaya, shaydaanna kuma soo dhawaan karo ilaa waa ka baryo. Abu Hurayra markuu intaa u sheegay ninkii faraha ayuu ka qaaday,
iska sii daayay. subaxii haddana nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay is arkay. nabiga wuxuu ku yidhi abu hureyra ka waran ninkii aad xalay qabatay. abu hureyra wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow ninkii wuxuu yidhi waxaan ku barayaa kalimaad ilaahay kugu anfaco ayaan ku barayaa buu yidhi. nabiga wuxuu ku yidhi maxay yihiin kalimaadkaas? wuxuu yidhi ninka wuxuu yidhi habeenkii markaad seexanayso waxaad akhrisataa aayatul kursi akhriso, ilaahay baa ku xifdinaya habeenkii oo dhan, shaydaanna kuuma soo dhowaan karo ilaa waa ka bari. nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam run buu kuu sheegay, laakiin ninku waa beenaale, laakiin hadda run buu kuu sheegay. markaasuu weydiiyey abu hureyrow ma garanaysaa qofkii aad la hadlaysay saddexdan habeen ma garanaysaa? wuxuu yidhi maya rasuulka ilaahay ma garanayo. wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam kaa wuxuu ahaa shaydaan ayuu ahaa, saddexda habeen waxa aad qabanaysay oo la hadlaysay oo disaysateen shaydaan ayuu ahaa. halkan ayay sheekadii inoogu dhammaatay. sheekadan waxaan ka faa'iidaysanaynaa ahamiyadda ay leedahay qofka inuu akhristo aayatul kursi intuusan habeenkii seexanin ka hor, iyo guud ahaanba qofka inuu ku dadaalo adkaarta xilli kastaba si uu mar kastaba qalbigiisa ilaahay ugu xirnaado, wax kastoo shara oo dhibayana ilaahay uu ka xifdiyo. mahadsanidin, la socda sheekooyinka soo socda. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أحبابي يا صغار، أهلا فيكم أشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا فيكم أشرقت الأنوار. إخواني أحبابي يا صغار، أهلا فيكم